Suldaanayaal Suldaan Maxamed oo ka mid ah madax dhaqameedka waaweyn ee Salaadiinta Somaliland isla markaasina ah afhayeenka Salaadiinta dhaqanka ee Somaliland ayaa bulshada Islaamka iyo bulshada Somaliland waxa uu ku hambalyeeyay curashada sanadka cusub ee Islaamka ee 1446. Suldaanayaal ayaa qoraal u soo saaray waxa uu sheegay in sanadkan ay Somaliland ka dhici doonaan isbeddello waaweyn oo saameyn leh, waxaana uu suldaanku tilmaamay in sanadkan ay Somaliland u noqon doonto mid ay ku doogsato oo rafaad badan oo madaxda xisbiga kulmiye ay badeen ay kaga baxaan isla markaasina ay barwaaqo ku galaan. Suldaanku waxa uu cadeeyay in sanadkan uu noqon doono sanadkii bulshada Somaliland ay heli lahayd isbeddel dhinacyo badan taabanaya, isla markaasina laga bixi lahaa go'doonka ay dalka geliyeen. Waa sida uu cadeeyay xisbiga talada dalka haya kulmiye, isla markaasina la geli lahaa barwaaqo iyo ilku doogsi cusub. Waxa uu sheegay in shacabka Somaliland ay ku abshiraan barwaaqo iyo guulo waaweyn, kaasoo ay taabagelin doonaan madaxda xisbiga mucaaradka ee wadani ee uu hogaaminayo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro oo ah musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadani. Waxa uu suldaanku bulshada Somaliland u hoga tusaaleeyay inay ku abshiraan in Somaliland ay sanadkani barwaaqo geli doonto, isla markaasina ay ka dhici doonaan isbeddello waaweyn oo dhinacyo badan taabanaya. Waxaanu suldaanku cadeeyay in shacabku ay adkaystaan midnimadooda, isla markaasina ay meel uga soo wada jeestaan qarannimada iyo difaaca Jamhuuriyadda Somaliland, isla markaasina sanadkan Islaamka ee 1446 uu u noqon doono midkii barwaaqada iyo badhaadhaha ay geli lahaayeen shacabka Jamhuuriyadda Somaliland oo waaye iyo waqtiyo badan oo duruufo adag ay soo mareen. Gabagabadii suldaanku waxa uu sheegay in sanadkan loo diyaar garoobay, isla markaasina uu sanadkan yahay sanadkii guulaha iyo barwaaqada.